dayib macalin maxamed xasan iyo sidoo kale xaliimo cabdi mursal ibraahim ayaa loo wada haystaa inay ka tirsan yihiin kooxda daacish. dayib ayaa ku eedeysan sameynta qaraxyada halka xaliimo ay ahayd soo dhaweynta maleeshiyaadka daacish iyo sidoo kale kaydka hubka ay dhibaatada ku geystaan, waxaana eedeysanayaashan lasoo xiray bishii Maaj ee sanadkan. 5tii bishii May ee lasoo dhaafay ayaa lagu xiray xabsiga dhexe garsuga ahaan. isla xilligaas garsoorka ayaa ka dalbaday xeer ilaalinta inay la yimaadaan cadeymo dhameystiran oo lagu maxkamadeyn karo dayib macalin maxamed xasan iyo sidoo kale xaliimo cabdi mursal ibraahim. xafiiska xeer ilaalinta ayaa baaritaan dheer kadib waxa uu maxkamadda ciidamada weydiistay in la maxkamadeeyo bilowgii Juun, isla xilligaas oo ay maxkamadda aqbashay dhageysiga dacwada eedeysanayaasha. xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda waxa uu ka hor cadeeyay in labada eedeysane ay isqabaan laakiin ay isku guursadeen magacyada Mustaf iyo sidoo kale Xaawo, waxaana ay maxkamadda ka hor sheegeen eedeysanayaasha in horjoogahooda isku doonay sidoo kalena uu u dhiibay magacyada Mustaf iyo sidoo kale Xaawo. qareenada eedeysanayaasha ayaa maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto loona fiiriyo qodobada dambiyada fududeynaya maadaama eedeysanayaasha lala soo qabtay agabkii qaraxyada ay u isticmaalayeen iyo sidoo kale qarax diyaarsan. dhowr fadhi kadib ayay maxkamadda maanta ku wada xukuntay min 15 sano oo xabsi ah dayib macalin maxamed xasan iyo xaliimo cabdi mursal ibraahim, sida uu dhinacyada dacwadda u sheegay garsoore gaashaanle maxamed cabdi muumin oo ka tirsan maxkamadda ciidamada.